dalka Tugriga ayaa soo saaray waaran qabasho ah oo caalami ah oo loogu talagalay aasaasihii goobta ganacsiga ee lacagta dhanka online-ka ah. Warbaahinta dawladda dalka Tugriga ayaa ku waramaysa in Faruq Fati uu la baxsaday Albania lacag dhan 7 halka doolarka Mareykanka ay u dhiganto 2 bilyan oo doolarka Mareykanka, isla markaasina laga qaaday 390 qof oo maalgashadayaal ah. dhanka kale booliska ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay 62 qof waa berigii saaka, kuwaasi oo kala joogay 8 magaalo oo ku yaala dalka Tugriga oo lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin shirkadda Master Ozer Storteges. Master Ozer ayaa ku tilmaamay eedooyinka ay u soo jeediyeen dalka Tugriga kuwa aan sal iyo raatoon lahayn, wuxuuna sheegay inuu Albania u joogo shirar shaqo. Todobaadkii hore dalka Tugriga waxa uu sheegay inuu mamnuucayo adeegsiga lacagaha online-ka la isku weydaarsanayo, isla markaasina in wax lagu kala iibsado laga bilaabo 30 bisha Abriil. Isku soo wada duub oo midooyinkii ugu dambeeyay waxa ku soo badanayay guud ahaan dunida lacagaha online-ka wax la isaga iibsanayo, isla markaasina lagu sarifanayo lacagta doolarka.